wafdigan wuxuu ka kooban yahay 4 xubnood oo ah aniga Cabdiraxmaan Al-Ruuxi reer Kibtoon ah iyo gudoomiyaha guud ee ururka ardayda jaamacadaha ee dalka South Africa Mrs Ikran oo ah madaxweynaheena ama Jay Beson sidoo kale waxaa nala socdo Masar Cabdirasaaq oo ka imaaday gobolka KwaZulu Natal magaalada Durban waxa kale oo nala socda Masar Ahmed Yusuf oo kamid ah asagana xubnaha ardayda ee gobolka Gauteng marka xubnuhu waxay ka kala imaadeen dhammaan gobolada dalka Koonfur Afrika ujeedada safarkuna waxay tahay in ay isbartaan gudoomiyaha isla markaasina dhawaan qaban doono aqoon iswadaarsi iyo kulan u dhaxeeyo gudoomiyaha iyo jaaliyadda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan jaaliyadda qaybaheeda kala duwan sida wanaagsan ay noogu soo dhaweeyeen magaalada Cape Town markaana waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed Mr Ikran welcome to Cape Town إكرام الكورن إماتين كذا أنت محاضر مساعة ومدام أتكتون إماتين أديكوا بدوميها أرضية الصومالية ده كونفور أفريقيا حل مهم وها يوم الصومالية. And كودي بحد هلا thank you so much ومحسنتين كلين كل دتك إمادة مشان أو إذنك بكميتين and سؤال هذا هدان كجواب وحد هلا and والله أدي فرح سنة دت بدنا ماشي ماذن big deal على يقولوا لكن really I'm not a big deal and I hope to represent أرضي that done well إن شاء الله. Thank you. Welcome. سو دو هنا هو شاطر سلام عشان يبكي لي سلام عليكم كم حاجه ها بورسوين كم